فرليح سجاشن سجالي طبعا كنت نجسدين. ولا تعلمون الحقوق باكر على السوشيال ورك and social administration for full scholarship. عندنا قناة الشعار وفرحان قديم اسمه مركز روح أقول في البيت كله. maanta oo kale anigu hadal badan marihi soo dhaweyn weeye halkan waxa inoo fadhiyo oo maanta marti inoo ah dad aqoon-yahana muddo dheer soo shaqeynayay waxbarashada ku soo jiray akaademiyiin ah aan rajaynayo maanta qof walba oo ina kamida intuu si fiican u dhuuxo wixii uu ku fakarayay iyo waxa uu maqlay analyze ku sameeyo guriga kula laabto marka inuu doorashadiisa saxda doorto dadka halkan fadhiya waxa kamida سيدي شيخ الدكتور محمد علي فارح ودكتور ومؤسس كم من المؤسسين تجامعات وأقوياهن وأنك سو شقينا يحبر شذ المدرر تلوين وناكسن وحبدا بحيه هذا ما أنت دياره وحكوه يقول لفظ يا بروفيسور عبد الرزاق حاشي بروفيسور كوي صوتن كيسنو ودن بي وحو جوغي ودن كماليزيا وحو أكاديميشيان waxbarashada ilaa professora uu gaaray waa macallin jaamacadeed waa cilmi baare runtii waxaan rajaynayaa halka wuxuu uga yimi barnaamijkan dartii inuu ka qayb galo markii aanu gaarsiinay in uu jiro barnaamij dhalinyarada markaa garowa ku nool wax ka baranaya inta kalena ay ku gaadho social media iyo maaragtaa maxaa aaladaha kale waxa la isugu gudbiyo in uu wuxuu doortay wuxuu yiri marka waxaan rabaa barnaamijka inaan ka qayb galo dhalinyaradaasna talooyin iyo waxa ay tahay caalamka dhalinyarada markay age kan oo kala marayaan in warbaxaa laga rabaa meesha ay joogaan inta la wadaago waa uga mahadcelinayna profka in uu maaragtaa waqtigiisii iyo timekiisii inta waqtiga la soo galiyay una halkaan ku yimi aad iyo aad baa ugu mahadsantahay professor marka la yiraahdo ardayga jaamiciga ah dadaalka looga baahan yahay lama soo koobi karo laakiin markaan la hadlayno arday muslim ah oo qaangaad ah oo mukallaf ah dadaalka laga rabo uu ka duwan yahay arday kasta oo kale dadaalka marka ardayga jaamiciga ah ee muslimka ah ee galabta halkan aan isku weydaarsanayno in la xaqiijiyo waxa looga baahan yahay waxaan ku soo ururin doonaa waxa aan ka fahanno laba aayadood oo quraanka ka mid ah qodobka koobaad waa xaq ilaahay way xilba in saaran adduunka 7 ilaa 8 bilyan baa ku nool oo bani aadam 7 ilaa 8 inta u dhaxaysa inagu hal iyo waxbaan ka nahay ka muslimiinaan hal balaas baan ka nahay waxba inoo dheer bilyan inta kale ilaahay ma aqoonsana dadka ugu horeeya ee laga filaya inay dadkaas badbaadiyaan waa dadka jaamacadaha ka baxaya way suurtagal ma aha arday jaamacadeed oo muslim ah oo dhul muslim degan meeshii isaga laga rabay inuu adduunkaas wax ka badbaadiyo isaga in la ilaaliyo sida caruurtii sax maaha qorshahaaga waxaad ku soo darsanaysaa
oo noloshaada aad ku soo kordhinaysa inaad jaamacaddan dhiganaysid iyo jaamacadaha kaleba sida doctoorku uu sheegay oo doctoorku waa kii tilmaamay kulankaani inuu yahay kulan arday Soomaaliyeed lagula hadlayo aysan ahayn arday jaamacaddan kaliya ku saabsan way ka guda ballaadhan tahay bil kulanka inaad jaamacad dhiganaysid tacliin sare baranaysid xilka aad qaadaysaa marka uu yahay xil adiga iyo bulshadaada iyo adduunkaba adduunkoodiina u wanaajinaya aakhiradoodiina u wanaajinaya waa bogaadinaya ugu horeyn madashan tusmayn iyo tala wadaag oo ah madal loogu talagalay hagidda ardayga doonaya inuu galo tacliin sare ujeedadeedana waxaa caddeeyey odayaashii iga horreeyey oo ah ardayga in la tusaaleeyo cusub oo freeshka oo ka soo baxay tacliintii caamka ahayd ka soo gudbay rabana inuu u gudbo tacliinta khaaska ama tacliinta sare ama tacliinta jaamiciga marxaladaas kala guurka la yiraahdo transitionka ama kala guurka ahi waa marxalad dhib badan oo culays badan waa marxalad ardayga iyo ahalkiisa iyo inta ku xiran intuba ay ku jaha wareersan yihiin jihada ay aadayaan marka aad iyo aad bay munaasab u tahay in tala badan la geliyo madashan oo kale tusmayn iyo tala wadaag iyo kuwa kaloo la mid ah in loo qabto ardayga la dhagaysto loo faa'iideeyo wax loo sheego meesha saxda ah ee la rabo inuu aadana lala wadaago marka waa u hambalyeynaya ardayda ka soo qalin jabisay ama soo dhammaystay dugsiyadii sare ee raba inay tacliintooda sare sii wataan dariiq waa dariiq dheer mas'uuliyad weynna waa saaran tahay dhammaan waxaana mas'uuliyadda sii cuslaynaya xaaladda dalku ku sugan yahay mar walba oo aad arkayso inay ardayga cusub iyo dhammaan bahda waxbarashada ay saarayso mas'uuliyad ka duwan mas'uuliyadda saaran dadka kale mas'uuliyaddaas oo u baahan bulsho in la dhiso islaamka jaamacadda ku qoran derbiga waxa weeye building better community yani in la dhiso bulsho fiican mas'uuliyad weyn Soomaali haddaynu nahay marka la samaynayo adduunka wax la cabirayo xagee baynu kaga jirnaa musuqmaasuqa kaalinta koowaad maxaan ku wax walba kaalinta koowaad oo xun wixii fiicnaan laakiin kuma tirsanin marka bulshadaas hoosaysa oo dhibaataysan baa loo baahan yahay in la dhiso mawduuca ah sidee ardayga takhasuska jaamacadda loogu hagaa ama uu ardaygu takhasuskiisa jaamacadda u doortaa waa waxa madashan loo qabtay madashan baa cabiraysa odayaashuna ninba dhinac buu ka taabanaya takhasuska aad dooranaysa iyo fursadda shaqada adduunka marka jaamacadka maanta laga hadlayo waa marka driven yani jaamacadaha waxa riixaya baahida suuqa jirta waxa aad baranaysaa suuqa qiimo ma ka leeyahay haddaad soo baxdo sabrita shaqo ma ku helaysaa qayb weyn bay ka tahay takhasuska aad dooranayso waa inaad daraasaysaa oo aad uga fakartaa takhasuska aad rabto iyo fursadda shaqo ee lagu heli karo ayaduna waxay ka mid tahay go'aanka kama dambaysta cilmiga waxa ardaygu uu ku qaadanayo ugu dambeyntii yoolka ama educational goalka ardayga waa ballaaran yahay waxa laga yaabaa inuu yahay yoolkaagu mid fog oo مثلا 10 sano oo kale ku eg yani 10 sano ee soo socda maxaan rabaa inaan noqdo waxa laga yaabaa in yoolka aad ka dhigato mid medium ama dhexdhexaad 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada iyo aqoonta iyo tacliinta iyo xirfadaha maxaan rabaa inaan ka gaaro iyo mid dhow oo ah inta aad waxbarashada ku jirto maxaad rabtaa inaad xaqiijiso waxa la rabaa marka yoolkaagu inuu noqdo specific wax maaragtay gaar ah oo la arki karo la taaban karo inuu noqdo wax maaragtay measurable oo la qiyaasi karo iyo wixii la mid aad ku dadaasho smart inuu noqdo
goolka aad had iyo jeer degsanayso laakiin waa inuu jiraa noloshaada yool aad higsanayso oo keenaya in aad markaa wax allaaliya wixii tallaaba iyo wixii dadaal ah aad bixiso oo aad geliso sidaad yoolka u xaqiijin lahayd aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa ardayda maanta ka soo qalin jebisay dugsiyada sare ee dalka gelaya jaamacadaha dalka waxaan idin leeyahay aamina dalkiina jaamacadihiina wadanka ka jira way korayaan way kobcayaan arday fara badan oo jaamacaadka dalka ka baxday maantay waa dad aad iyo aad wadanka wax ka ah oo macno leh marka على أقل شيء قيمة كواد أما هيرك كواد أو حبرشو كددال إن عدلك على كقاعدته. طابق الإيدي بوحوها على مدها أما سفوينك لوية قانو قفك أرضيك يكالنت وقفك أرضيك بالشدة كجأدية. marka calaamadaha ama sifooyinka ama attributes ka iga raali hada af Carabi iyo waxaan ku dardari doonaa iyo af English igama aha waan si afeefan Soomaalidu waxay tiraahdaa ama afeef hore lahaw ama adkaysin dambe lahaw waan ogahay xogaha Soomaaliga ma ilaawin in kasoo in badan ka maqnaa marka waan si afeefan hadaan xogaha luqooyinka qalaad ay iga soo galaan hadda waan si afeefan inaan luqada Soomaaliga ka faanayo igama aha oo luqooyinka qalaad ku faanayo marka sifooyinka ama maaragtay calaamadaha lagu garto qofka jaamiciga hadaynu fiirino way balaaran yihiin runtii marka intayna calaamadaha u gelin aan in yar ilaahdo mahmaha Soomaaliya mar walba aad ii soo jiidataa jirta idinkuna aad wada taqaanaan oo aan ogahay inaad ogtihiin Soomaalidu markaan yar yareen ama waaweyn waxay nagu celceliyaan oo aad aan u wada ognahay inay yiraahdaan aqoon la'aani waa iftiin la'aan bay dhahaan يعني أنا هذا وحبا أقولين وحي كدغان tahay qof aan iftiin haysan hadaan iftiin jirin waad ogtiin indhahan waxba ma arkaan meeshii iftiinku ku dhaco qoladan optometriga dhigata ama basariyaadka way noo sheegi doonaan wixii iftiinku uu qabtay ishaadu qabataa hadaan leerka baqtayso ishaadu waxay ku leeyihiin waxba ma joogaan iftiinadan hadaan aragnay hareeraheena ku xirsan hadii la baqtiyo intaas oo khalqiga meesha fadhida waxa laga yaabaa indhahaadu inay kugu dhahaan cid aan adeehayna meesha fadhida ma laha sababtoo ta iftiinkii ku dhacay isho ay qabanaysay baan jirin marka ishaadu si ay wax u aragto waa in uu jiro iftiin sidoo kale maskaxdu si ay wax u ogaato go'aan u gaadho nolosha aad u maamusho kaalinta lagaaga baahan yahay aad u gudato waxaad u baahan tahay in lagu iftiimiyo waxa ku iftiimiya nolosha ee ku tusana waa cilmiga waa aqoonta waa waxbarashada saasay Soomaalidu waxay nagu yiraahdeen aabayaasheen markay nala hadlaayeen ee iskuulada noo diriyeen waxay noo sheegeen aqoon la'aani waa iftiin la'aan bay dhahan macnaheedu god curbaad ku nooshay iftiinku hadii la waayo maxaa imaada when there is no light what comes in god curbaa imaada darkness marka maskaxda hadii uu darkness kaaga jirane waad garan kartaa culayska iyo dhibaatada ay ku keeni waad garan kartaa waad qiyaasi kartaa aad waa dareemi kartaa saadarteed baan mahmaha afka qalaadahan idinku dariyay Asian ku noolahay marka mahmaha Asian idin koray ninka odayga ahaa ee maaragtay Confucius la dhihi jiray maaragtay madhabkan Confucianism kana maaragtay iska lahaa ayaa eray buu lahaa hal ku dhag ah eraygiisa waxa kamid ahaa wuxuu ahaa ignorance is the darkness of the mind a darkness that is without a star and moon buu leeyahay jahligu waa gudcurka maskaxda oo waliba gudcurku uu isdhaamaaya gudcur aan xidigo iyo dayax midna lahayn adigu ka fikir yaani habeenku markuu damo habeenada qaar dayax baa jooga dayax waad garanaysan xoogaa iftiin laga helo inkastoo sida qorraxdu powerful ahayn haddii uusan dayaxu joogin xidigaa la helaa mararka qaarkood oo xidigahaasaba ku hagiba halkaas maaragtay aad ku soconaysaa bal ka waran adoo gudcur ku jira xidiga iyo dayax midna aan haynin ka waran xaaladda marka wuxuu yiri jahligu waa gudcurka maskaxda oo waliba aan qorrax waxaan wada dayax ay xidiga midna lahayn waad garan kartaa marka wareerka ku qabsan karaya markaas waxaad hadana dareemaysaa markaad istiraahdo waniyo gudcurkan ka bax oo wax baro yaa waxa kugu iimaanaya culaysyo kale culaysyada kale kugu iimaanaya waxa kamid ah waa inaad kacdid waa inaad dadaashid waa inaad soo jeedid waa inaad maskaxda dhiraan dhirisid xoogaa maskaxda tuujisid waa inaad maaragtay dadka jiifo adigu aad soo jeedid waa inaad lacag bixisid
fii baa lagaa rabaa hadda waxbarashadu dee maaragtay xoogaa waxaan u malaynayaa meelaha qaarkood inkastoo doctor maxamed aan ka yar dareemay inay jiraan minxooyin oo kale doctor maxamed maahay ninkii kale ka horreeyey buu ahaa ardayda qaar intii mutaysatay inay minxooyin helayaan haddana inta badan ardaydu xilliyadan dambe waxbarashada sare waxaa lagu bixiyaa kharash baa lagu bixiyaa ama ha noqoto tan jaamacadda loo shuba ee fiiga ah ama ta adiga kugu baxaysa shakhsiyan ha noqoto marka ayaamahan dambe waxbarashadu rakhiis maaha iyaduna juhdi dheeraadana way rabtaa marka warkaasi waxay dhaheen waxbarashadu may dhaheen mee wayba tahay dee waxbarashadu waa qaali ama ha noqoto lacagta aad bixinaysa iyo fiiga ama juhdiga adiga kaa baxaya iyo dadaalka aad bixinaysa ha noqdee it's not cheap it's an expensive marka si kale u dhigaan waxay dhaheen if education is expensive try ignorance try ignorance hadday waxbarashadu qaali tahay which is true bal waxaad ka war doontaa jahliga isaga laftiisu intee buu kugu kici karaa waxaa laga yaabaa inaad tiraado oo jahligu ma lacag buu u baahan yahay gurigaygaan iska fadhiisana jaahil waa noqone kharash ba iga bixi mahaye taa maaha midda loo jeedo haddaba iyo kaa hoos bixin waan ogahay idinkamana hoos baxayso midda loo jeedo waxaa waaye haddii ay waxbarashadu qaali tahay oo ay run tahay waxay mar walba ka jaban tahay jahliga sababtoo hal go-aan oo jaahilnimo ku qaadatay baa noloshaada dhan la degaya baynamaa hal go-aan oo waxbarasho iyo cilmi ku qaadatay uu noloshaada sare u qaadaya marka kharash kasta oo aad bixiso lacag kasta oo aad shubto juhdi kasta oo aad cilmiga geliso aqoon kasta iyo dadaal kasta oo kaaga baxa still aqoontu oo la yeeshaay kharashka ku baxa wuxuu ka jaban yahay oo ka rakhiisan yahay jahliga taasa marka waxay nagu keenaysaa caqabad kasta oo ku hor imaata as arday inaadan dan ka maaragtay u gelin la astashilana sacba aw udrika almuna فلطال من قادت الآمال لصابر سوما هي شعر كعربيدينك عربتا وعربيدينك iga badiya wax kasto culus gaar ahaan marka waxbarashada aad waxbaranaysid macallin baa iskaga ka xanaaqi raalli ahada macallintu way dabeecad fiican macallintu wax kama sheegaya macallintu aan xamanahay qaar baan walayn doona ana laftayda macallin waqti laakiin xantanada ma moogin macallintu ay sogna xantanada qaar baa xoogaa iska adag qaar baa assignment ku dhuujin qaar baa hadaad soo dahdan ka dabcinaynin qaar baan jaxan hal daqiiqo hadaad soo baahdo iska ku dhihi kalaaska qaar baa laga yaado dadaalay oo juhdigii inuu ku dhaho ma waxana noo keentay orada nagala tag marka waxaas oo dhan laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka gudubtay hadafkaaga iyo yoolkaaga ayna ka hor istaagin marka midaan uga jeedo waxay tahay gogoldhiga walaalayaalow waxaad maskaxdiina gelisaan maankiinana gelisaan juhdigan aad ku jirtaan mar walba wuxuu ka jaban yahay oo ka rakhiisan yahay ama macallinka ha kugu xanaaqo ama adiga kharashka kaa baxo ama dadaal dheeraada la yimo wuxuu mar walba ka jaban yahay ka rakhiisan yahay alternative-ka ama bedilku waa maxay waa jahli marka wax la dugsadana ma aha qaraabanimana ma aha wax lala maaragtay lala noolaadana ma aha aynu ka baxno sheekh axmed iyo waxaan bana culimada oo dhan baa jooga mar walba diinta uga dambeeya iyaga hadda inoo sheegay markii dhaweyto cilmigu inuu yahayba choice maba fiir inaad cilmi barato choice ma aha salaada hadda markii la adimo waan markii la aqimo waan tukanayna soo ma choice ba macid baa inaga wareysato soo fardi ma fariidatu salaat soo lama dhaho cilmiguna shareecada culimadeena waxay noo sheegeen inuu yahay fariido al-ilmu fariidatun ala kulli muslim soo ma ahayn ustaad axmed iyo culimada mar walba isku haleynaya sixi doonta haddaan wax ka khaldo oo inoo joogto marka cilmigu choice ma aha aad adigu leedahay oo markaa rabtana baran kartid markaa rabtana ka tegi kartid sida salaada lagaaga rabaa cilmiga laakiin takhasuska iyo eriyada aad xoogaa ku dheeraanaysa aday ku taalaa cilmiga sidaas marka aan u soo noqono cilmiga sidaas inaad barato oo laga rabo maxaa maaragtay suura geliya inaan cilmi yeesho dabeecadaha la iga rabo diyaar garowga la iga rabo maxay tahay way fara badan yihiin laakiin afar qaybood baan ku soo koobaynaa ila tiriya idinkaba si degdeg ah afarta qaybood qaar baa sii qaybsama afarta qaybood qayb doctor axmed yaa iga horeeyo iyadu taawan ma dhinaca shareecada iyo dhinaca diinta islaamka ayagu de inaan ka hadlo maaragtay maadaama culimadii ka hadleen khayr allah siiya way sahleen marka diintu mowqifka ka qabto cilmigu waxa uu yahay in maaragtay qofka mu'minka waad wada garanaysan quraanka oo dhan qofku haduu iimaan leeyahay cinda allah waa rafiic yani darajo sarule laakiin waxa ka sii sareeyay isaga sheekh axmed yahay saxaano insha Allah raaliga hadaan xad gudbo culimadeena mar walba iyaga isku haleynaya inaynan u dul qaadan doonin wax khalad ah waxa ka sii sareeyay qofka mu'minka cilmiga laha ka sii sareeyay isaga yarfa illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات سماهين سوره المجادله
ustaad haddaan khaldanahay iyo culimada kaleba ha isaxaano raalliga ahaada halka haddaan xadgudub sameeyaa mar walba diyaar waxaa maha in la isaxo marka waa suurat lmujaadala aayadda 13 aayadda 12 ka fiiriya haddaad taa ka tagtaan ood suurat zumar tagtaan suuradda 39aad ee qur-aanka waad wada garanaysaan aayadihiisa maxaa laleeyahay aayadda 6 ama 5aad hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun war kuwa wax og iyo kuwa aan wax ogeyn miyay siman yihiin su-aasha jawaabtu waa maya methodka ama istaylada qur-aanka waxaa ka mid a ilaahay uu noogu soo dejiyey markay qur-aanku su-aalo badan buu keenayaa oo caqliga maaragtay soo jiidanaya moogtay provocative questions marka caqligaaga attentionkaaga la soo jiito qur-aanka oo su-aalo waaweyn lagu dhiibo yaa hadday jawaabtu obvious tahay obvious af Soomaaliga halkaas isaacida caasha garati miya af Soomaaliga caasha cilmina waa inuu garto marka hadii caasha garat Soomaa I don't know way mahmaada ay wala baxaan su'aalaha basiidka waxay dhamaan waxaas waa caasha garatay naga dhaaf marka caashadu waxba ma garatay miya wax un dhintay mooyee I don't know waa su'aal so cilmina soo kuma adkaan karta iyadana dhalle hadaya aniga ma dhihin mahmaada waa mahmaha Soomaaliga marka su'aalaha basiidka ee maxay dhahan si kale u dhahan doqon garatay miya mise aduu sina waa u sheegaa marka hadday jawaabtu caddahay quraanku aduu ku ilaahay maaragtay adaa lagu daayay jawaabta marka yar waxa waaye maxaa la yiri hal yastawi alladheena ya'lamuuna walladheena la ya'lamuun masimayhin kuwa wax og iyo kuwa aan wax ogeyn of course you don't need jawaabta inaad tiraahdo wait a minute 2 times 2 equals ha kuwa cilmiga badan baa sareeya inaad dhahdo inaad calculation gelisid uma baahnin inaad microscope qaadato jawaabta soo ogaatid uma baahnin inaad telescope qaadatid sababta waa caashi cilmi garatay waa jawaabta marka waa caddahay moogta Allah halkaas ya gabagabadii marka cilmiga sida u fadli badan ee sida u wada jecel lahay waxaan rabaa inaan idin dhaho tii diinta waxa way sheekheena inooga hadlay iyo culimadii ka horeysay saddex xaalo oo kala aan fiirino arday hadaa tahay oo laga rabo koow waxyaabaha ay dhahaan mental errors ama logical fallacies maadaama oo aad tahay nin inuu wax ogaado rabo ogaantu waa maxay xaqaa'iqa jiraad maskaxdaada gelinaysaa say wax u jiraan baad ogaanaysaa marka maadaama oo ay nin ay baadi ka luntay tahay baadi bari hore ka fakatay baad raadinaysaa marka waa inaad u diyaar garowdo wax kasta oo caqabada oo baadida ka maqan ka hor istaagaya koow waxa ka ah inaad ka fogaato waxyaabaha logical fallacies ka ay dhahaan luqada ingiriiska Soomaa af Carabiga waxaan u maleynayaa uqluud fikriye dhahaan ama uqluud aqliya af Carabiga Soomaaliga waxay noqonaysaa gafafka ama khaladaadka maskaxeed inaad ka fogaatid ee maskaxdaada ku keeni kara in ayna ogaanin say wax u jiraan ee blockage ka saari karaan khaladaadka maskaxeed way fara badan yihiin qaar waxay gaarsiiyeen 10 qaar 20 qaar 100 waad arki doontaan Sheekh Google weydiiyo waa taqaanaan Sheekh Google ninkaas sheekhaas maaragtay loyalka waa taqaanaan sheekha waa taqaanaan Soomaa Sheekh Google GOOGLE waa garanaysaan marka Sheekh Google bay dhahan Professor Google la way dhahan magac badan bay ugu yeedhaan marka ama Google bay Soomaalidu tiraahdaa marka qaar waxay gaarsiiyeen ilaa 300 oo uqluud fikriya ama logical fallacies laakiin waxaa jira caawa 6 qodob oo aynan maaragtay ka gudbi karin baan rabaa inaan idin xasuusiyo si maskaxdaadu ay suuragal ugu noqoto siday wax u jiraan inaad ogaato marka waa logical fallacies waxa kale iyadana jira adiga iyo maxaan ku idhaahdaa diyaar garowgaaga isaguna waa muhiim isaguna qodob baa ku hoos jira waxa kale oo isagana jira oo u baahan tihiin attitude-kaaga iyo qaab dhaqankaaga qofka cilmi dalabka ah ama cilmi doonka ama aqoon doonka ah dabeecada iyo qaab dhaqan laga rabaa jira haddii qaab dhaqanka laga waayo waqti iska lumin cilmina maaragtay ma baran kartid intii ku dhashayna maaragtay waqti badan iyo lacag badan iyo kharash baa laga yaabaa inay bixiyaan waana la garan karaa natiijada meesha ku dambeynayso aan idin horeysiye waxaan ku horeynaynaa saddexda aan idin sheegay waxaan aan idin ku sheegay khaladaadka ama gafafka maskaxeed aan ku horeynay gafafka maskaxeed 6 qodob baynu maanta ka sheegaynaa way fara badan yihiin koow waxa ka ah oo rabaa inaad ila qortaan waxaan ay luqada ingiriiska ku yiraahdaan ad hominem ama maxaan ku idhaahdaa af Soomaaliga waxay noqonaysaa tusaalaan ku cadeyn af Soomaaliga idinka ilaa raadin doono waan idin sheegay inaan afka ingiriiska ku faanaya ma aha laakiin tabar ba halka ay dhigtay waana ceeb jirta runtii waxay noqonaysaa
mar waxaa jira adoo xaqiiqada raadinay fiiri ama macallinka ha noqdo ama cilmi baaraha ha noqdo ama saynististaha ha noqdo ama wariyaha ha noqdo mar waxaa jirta xaqiiqada iyo qofka kuu sheegaya ay isaga ka ekaadaan oo meeshii xaqiiqada aad raadin lahayd aad qofkii karakterkiisii ku khaladid marka waxaa laga yaabaa qof baa wax kuu sheegaya shan lagu dhuftay buu ku yidhi waryaa waa meeq shan lagu dhuftay waxaad leedahay waa 25 sukule oo adiga niyo maxaa ka garanaysaa 25 hadda magaalada soo gashay magaalada hadda soo gashay markaasaa shan lagu dhuftay waxay tahay ii sheegaysaa waran inaan magaalada hadda soo galay iyo inaan daraad soo galay iyo inaan tii ka horreey soo galay iyo inaan saacadda soo galay maxaa kaa galay waxaan aan sheegay issue-gan aan ka hadlayo sax ma yahay mise ma aha adiga ardayga taasaa ku taala inaan dheerahay inaan gaabnahay inaan madoobahay inaan casahay inaan dumarahay inaan ragahay adiga kuma taala my character is my character my personality is my personality mogta laakiin adiga markaa xaqiiqo raadistahay waxaa ku taala waxaan aan ka hadalay inuu sidaa u jiro iyo inuusan u jirin marka waxay yiraahdaan yani you have to distinguish between the character and the facts marka haddii aad waqti badan ku dhumiso maalan oo kale ka soo qaad sigaarkan ka hadlaynin nin baa wuxuu ku warniyahow sigaarku waa waxaan iska dhaaf ama qaadka bulshadana qaadka dhibaato badan ku haya nin baa ku tiri warniyahow qaadka iska dhaaf markaas inta ku fiiri kule dawaan ku ogahay adiga waxaad qaadka u leedahay maxaanka war uu xun yahay cudurkan u leeyahay kan waqtigu ka dili maskaxdu ka dili waa mandooriyo maskaxdaada ixtiraam baad ku dhihi moogti intuu ku fiiriyo kule waan ogahay ma gadan kartid daasoo aad bahalka u nacday niyo lacag badan hayninta xogaa jabkaaga maran safka hore aad ku tukato salaada kule shaqalaan baata war inaan shaqalaanahay inaan safka hore ku tukado inaan lacag la'aanahay waa arrin kale ee bahalkan inuu xun yahay in kale aan ka hadalno horta wuxuu ku leeyahay marka maanta dhan haddii aad character attack ku mashquulsanaato waxay ka ilduufinaysaa ama ka leexinaysaa adiga fiir aqoon baad raadinaysaa mogti aqoontuna waa maxay way say wuxuu jiraan ogaatid ma ogaan kartid qaadku inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay sababtoo ay tahay maba aadan isku mashquulinin ninkii kuu sheegay baad ataagtay ma garan sigaarka la mid yani waxyaabo badan kun issue marka waxa ku soo mari haddii aad character attack isku mashquuliso aadan ogaan karin issue-gii laga hadlayo adi marka maadaama aad arday tahay alxikmatu daalatu lmu'min waa tii ahayd waxaa mar walba kaa lumay cilmi aqoon mas'alada issue-ga inaad fahantid qofka wada iyo dabeecadihiisa inuu dheer yahay inuu gaaban yahay waa arrin kale mar kale aynu ka hadlaynaa character assessment mar kale aynu ka hadlaynaa markii cilmi jarx wa tacdiil iyo ustaad axmed markaa u imaataan iyo naqlu akhbaar markaasaan ka hadlaynaa iyada laakiin hadda cilmiga waa gaar taa marka waxaa la yidhaahdaa ad hominem oo macnaheedu ay tahay inaad isku mashquuliso characterka ee aadan aadin issue-ga laga hadlayo iyo qiimeyntiisa waa doqonnimo waxay kaa hor istaagtaa marka inaad wax fahanto laba waxaa ka mid ah hasty generalization waxay dhahaan qodobka labaad ee maskaxdaada u diida si wax u jiraan inay ogaadaan waxaa weeyaan at-tacmiim yacni inconclusive evidence inaad mar walba wax ku dhisto ama daliil aan dhammaystirnayn fiiriya daliil aan dhammaystirnayn inaad go-aan ku qaadatid waxay kuu keentaa ayadana inay maskaxdaada ogaan doonto say wax u jireen daliil aan dhisnayn waxaa waaye waxaa laga yaabaa in aad aragto maalan nin baa waddan ka imanaya maalan waddan maraykan la dhuhu ka yimid marka dabeecaddiisa aad u bog weyday ka waran haddaad ninkaa uga qiyaas qaadato waxaba oo tidhaahdo war niyo ilaan meesha maraykan oo meel inkaaro ku dhacday waraad inkaaro kuma dhicin kaa horta balbaro ninkaa baad aragtay balorda maraykanka tagoo la sheekaysto arag oo la noolo oo marka 200 300 milyan dad dhan yaad hal ama laba qof intaad ka aragtay yaa waxaad u degdegtay tacmiimka marka wuxuu kaa fogeeyaa xaqiiqada khalad buuna kugu ridaa waa mistake waa mental errors ayadana ma garan ka fogow waliba waxaan isleeyahay annaga markaan ka yar baxan cilmi baaridda dadkeena Soomaalida dhibaatada ku hayo hasty generalization kaasi dhibaatooyinka inagu hayso waxa kamid ah qabyaaladda reer hebel waa wada sidaas aad maqlin ninku reer hebel waa intaas oo kun boqolaal kun ay ka kooban yihiin maada tira koobay weydii reer hebel ragooda way dhaadheer yihiin reer hebel ragooda way cascas yihiin reer hebel walba sidaas dumarkooda waa maaragtay waka reer hebel maaragtay ragoodana waa sida maxaan ku dhahay jaamacad hebel dadka ka soo baxa waa wada sida jaamacadda waxa laga yaabaa kumanaan qof inay ka qalin jabiyeen mid fiican mid wanaagsan inay ku jireen marka waxa la dhahaa marka hasty generalization oo soo koobaya insha Allah hadii la yiraahdo qodobada xogaa badan laakiin waan soo khulaasaynaya hasty generalization ka marka dib badan buu ku keensadaa marka mid aan uga jeedo waxa waaye haddii aad xaqiiqa raadista fiiri ama chemistry ga dhigo ama biology ga dhigo ama physics ka dhigo ama social science ka dhigo
ama maadadii kale inta ay cilmiga dhiganaysa dhigo laakiin ka fogow isku duud qaadka yani waxyaabaha yani maaragtay diinteenu ayna baraysa mar walba yaa waxaa ka mid ah oo asaasi u ah mar walba gogoldhig u ah anaga maaragtay ama gundhig u ah dhaqankeena in aan cadaaladda wax ku dhisno oo aan dhanniga iyo shakiga aan waxba lagu dhisin marka hasty generalization waa maxay waa wax aadan hubin laakiin aad u qaadanaysa inaad hubto saas u dhig qof ama labaad arki intii kale dadka maadan arag ka waran haddaan qaacadan dadka fadhiya aan idhaahdo oo maasha allah dadkan oo dhan maaragtay waa xilli dambaa lagu jeeda habeenaho dee hurdaa haysan mid iyo laba iyo saddex waxaa laga yaabaa xoogaa inaan arkay indhaha isku haysto oo laga yaabo inuusan hurdin lagaba yaabo inuu fikirayo indhaha isku qabsaday ma garan marka haddaan laakiin go'aan ku qaato oo war waa xilli dambe dadka dhan way hurdaan aan soo dhammaystiro war ma hurudnaad leedahay waa soo jeednaayne waxaad maaragtay bal waxaad sheegaysa sheeg marka hasty generalization waxaa la dhahaa adiga oo aan intii kala arag ama say wax u jiraan wada ogaanin ama si individually aan u arag xaaladda go'aan ha gaadhin marka waan ka hadli doonaa marka manaahiijtaad ku baran doontaan deductive inductive methods iyo probability iyo waa baab kale hadda baabkaa kama hadlayno al-istinbaad wal-istiqraa waa baabab kale laakiin hadda midda loo jeedo waxaa waaye markaad go'aan qaadanaysid waxaad hubta ku qaado maxay dhihi jireen soomaalida hubaal baa maxay ahayd hal la siistaa soo ma ahayn waxaadan maaragtay intaada falin ka fiirso mahmahayo badan baa jira marka gebagabadii waxaa waaye waad wada ogtiin hadda qur-aankii diinta laydinka sheekayn mahayo mar walba innaga waxaana faran oo uu qur-aanku ku celcelinayaa oo maada mithaalkii hore oo kale inta tusaalihii hore karakterkii ishuga in la kala saaro suuratulmaa-ida oo kale sheekh axmed baan insha allah isixi doona haddaan khaldanahay suuratulmaa-ida oo kale waxaad ogtihiin aayadda qur-aanka suuradda waxaa waaye shanaad aayadda lixaad meelaha ka fiiriya idinkaa qur-aanka yaqaana waa markana leeyahay laa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu baa laleeyahay huwa aqrabu litaqwa inaad qofka nacab tahay shaksiga yayna kugu kalifin inaad cadaaladda ka fogaato adiga marka iishuuga laga hadlayo yaa ku khuseeya fiiriya shan lagu dhuftay inay 25 tahay inay 30 tahay yaa ku khuseysa inaan ogaano magaalada Garowe populationka ku nool tira koob baan khuseeye in maaragtay wax kale oo khuseeye ma laha magaran marka qofka hadlaya this is the conclusion qofka hadlaya karakterkiisa hadduu wanaagsan yahay iyo hadduu xun yahay yeyna kaaga laaqmin ama kaaga qasmin ishuuga laga hadlaya sababta cadaaladaasaa ku jirta cadaaladuna marka u dambayso taqwo ilaahay bay ku geysaa iyo alla ka cabsi waxaan u socono dhamaanteena waa sheekh hadii noo sheegay waa alla ka cabsi iyo taqwo qodobka saddexaad ee laga rabo adiga waxay tahay maadaama cilmi baadho sare tahay waxaan la dhaho maaragtay to co-q ama inconsistency of actions and words ina ka fogaatid yani hadalkaaga iyo ficilkaagu inay kala duwanaadaan cilmi baadhaha sare iyo qofka muslimka aba waa ku ceeb wixii aad ii sheegto waa inaan ficilkaaga ka arko laakiin haddaad wax wanaagsan ii sheegto wixii waxaan ahayn aan kugu arko tee waa inconsistency ama iskhilaaf iga raalli ahaada yani maxay dhihi jireen Soomaaliga maxay noqonaysaa yani waa waxaan islahayn waa qof waxa tahay ku nool xaalad aan caadi ahayn sigaarka waad sheegi waxaad leedahay waa xun yahay qaadka waa xun yahay haddana waxaan ku arkay adoo ku fadhiya qaadka ama sigaarki taadar waxba khaldan markaa ma garanaysaa marka macnaheedu inconsistency maxay u soo geliyeen culimadu markaad wax ogaatid waxaad ogtahay aan ka arko waa ku dhaqan markaad wax ogaatid aad cilmiga barato ficilkaaga laga arko actionkaaga aayadda quraanka suuratu sabane way ku fadhidaa waad garanaysaan idinka wada garanay wada xasuusan suuratu sabama suuratu saf samahayn aayadda labaad suurada 60 iyo 103 meelaha يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لله وريانهم قلدين الإيمان كله ها سيداي كل على واحد كهل ليسان هي فعل كنو إننا إصلاحين سيد وحوش شيء وحوقتهن هذانا إذا كل رقمين وعيب ترتوى علم بارها صار مركو حلنا هكفوا هذا أرين كاسو كله هدو جاهل كل دعاء كأقبل منه لك وعذر دارنا سببته هو جهل لكن كأقبل منه وحكسي حنينك علم قالها كل دعاء هذانا أفر قضب كأفراد اللي قارب وحواية هذا العلم بارس رتاهي appeal to authority وخلط يعني إن هذا علمي قاعد أغانيسو authority كحده فيريا appeal يعني إن هذا عسكته أود وتر هذا شان لقدري شان يا طبعا وي رالي هذا علم ما أذكر رجع دقة معلمين تقرأ هذا يا وحنا خلط يا سماركتان
macallinka xisaabta ku xun yahay hadheen xoogaa shan lagu daray hee waa 15 marka midaan raba inaan ku soo gabagabeeyo waxa way jaamacaddu waa ammaano bay kugu tahay adeegyadeeda iyo kalaasyadeeda iyo dhismayaasheeda ammaanada cidda ilaalinayso ee waliba wax ku daraysana waa adiga inta qabsan gabagabadii qodobka u dambeeya waxa waaye waa attitude waa maxay waa qaab dhaqan ma aha hadda nadaafadii iyo hygiene-kii fikirkii iyo maskaxdiina ma aha waa qaab dhaqan qaab nololeed waay qaab nololeedku wuxuu ka bilowdaa kow waxaan ay dhahaan time management is very important gaar ahaan markaad arday tahay qofka muslimka oo dhan bay muhiim u tahay laakiin markaad arday tahayna kasii muhiimsan marka time management haddaadan timekaaga miisaamin isuna dheelitirin waajibaadka lagaa rabo iyo koosooyinka lagaa rabo hadhow maaragtay damiin iyo macallinkiisa hays eedeeyanay dhahan mogti qofka damiinka ah iyo macallinka eedeyn baa ka dhaxaysa macallinku wuxuu leeyahay waxbaa baraa damiinkuna wuxuu ku leeyahay intuu kalaaska ka soo daaho oo ka seexdo xal dhan buu sheekaynayay balaayo baas iyo meelo aan loo joogin iyo ku mashquulsanaay iyo maaragtay social media aan waqtigiisa maaragtay loo haynin dagaal buu isaga jiray kalaaskii buu ka soo daahay waa loo diiday imtixaankii buu ka daahay ardaygii oo iskaba ama laga yaabo xal dhan intuu wax kale ku soo jeeday final examka isagoon xalay seexanin inuu yimid xisaabtii markuu isdhoofiiri iskuma dhufsamaysaba wax kale unbaa soo bixi meeshii 5 lagu dhuftay 25 ay soo bixday 30 baa u soo baxaysa ilaa waa nin qaadiraysan xal dhan soo jeeday marka waxay ka mid tahay يعني failure of time management waa calaamadaha ama halbeegyada lagu garto qofku inuu ku fashilmay waxbarashada marka time-ka fiiriya 10 daqiiqo time-kaaga haddaad wax aan sax ahayn ku lumiso hadhihin 10 daqiiqo time-kayga iga lumay hadhihin ee waxaad tiraahdaa 10 daqiiqo cimrigayga ka mid ah iga lumtay cimrigan waa yaryahay waqti yar baa lagu siiyey saad u maalgashato unbay noloshana kuu noqoni ibtilaaga iyo imtixaanka ay dareecadu sheegtay bayna ku jirtaa marka haddii timekaaga managementigiisa aad ku fashilato time management waxay ka dhigan tahay waxbarashadana waad ku fashilantay ummadana ma maamuli kartid bay ka dhigantay marka time investment waa very important haddii timeka marka aan maamuli weyno ceebteeday leedahay cuntadaa kaa khaldami jiifkaa kaa khaldami kalaasyada kaa khaldami hurdadaa kaa khaldami fiiriya marka time management iyo ardaygu waxaa la dhahaa waa mataano saa u fiirsada 5 daqiiqo oo cimrigaaga ka mid ah ama timekaaga ka mid ah ku luminin qiila waqaala iyo waxaan macno lahayn si aadan hadhu maaragti aadan waqtigaaga uusan ciriiri u noqonin labo mid aan rabo inaan gabagabadii kusoo gabagabeeya waxay tahay waxaad ogaataan jaamacaddan inaad imaataan waa fursad primary school ka markaa dhiganayseen arday fara badan oo primary school kula dhiganayseen laakiin aan secondary kula soo gaarin baa jira secondary school ka markaa bilowdeen arday fara badan oo secondary school ka aan idin la dhamaysanin baa jirta oo duruufuhu iyo xaalado kala duwan la soo darseen arday waxaa jirta secondary ga wada dhamayseen laakiin aan wali fursadan aad hesheen oo kala helin dhinaca markaad ka fiiriso waxaad dhihi kartaa waxaa tahay qof oo lucky ah lucky erayga lucky baan ku noqon doonaa ya marka qof nasiib badan baa tahay horta lucky maxay tahay balaas weydiina lucky erayga lucky loo dhinaca qofka uu biti badan yahay sama dhahan lucky maxaa la dhahaa halka meel aragteen tacriif definition buu u baahay qeexid ma qeexna erayga haddaba culimadu critical thinking culimada dhigtay waxay yidhahdeen wax lucky la dhaho ma jiro there is no luck markaas la weyna warkaadi maxaa jira haddaan lucky jirin maxaa jira kuleen wax lucky dhaho ma jire lucky means when the preparation meets the chance lucky waxaa la dhahaa qofkii diyaar garowgiisa uu fursadaha jira u suura geliyo inuu ka faa'iideysto adduunka waa wada fursado this life is full of energy yani nolosha waxaa ka buuxa fursado hawadan aad arkaysaan aad moodaysa inay furanta energy baa ka buuxa oo tan shimbiruhu ay fananayaan iyo diyaarado fursadaha adduunka ka buuxa ee maaragtay shaqo dhaqaale ganacsi yaa ka faa'iideysta ma taqaana inta diyaarka u ah baa ka faa'iideysato ilaahina u qoray saan idin sheegay waraaqaha waa la isdhex gelin doonaa waxaa loo soo qabanayaa si nasiib ah aan ugu hormariyo gudoomiyaha jaamacadda boosaaso farceeda magaalada garowe doctor maxamed cali maslax oo inoo soo saari doona 6 nambar ee ugu horeeya qof walba ku ducaysa ilaahay inuu ka dhigo adiga
دكتور ينوفر فرلح سقاشن سقالية طبعا كنتم يسدين ولا تعجبوا للحكومة Bachelor of Social Work and Social Administration for full scholarship. Ilmu ugu horeeya aan soo qabtay waxa weeye furalix 24 konton wiilkaasi wuxuu ku guuleystay kulliyadda educationka Bachelor of Islamic Studies oo full scholarship halkaa waxaa ka soo istaagtay gabadh ardaydaasi waxay ku guuleysatay Faculty of Science and Technology Bachelor of Data Science oo full scholarship hambalyo gabadhaasi waxay ku guuleysatay Medicine of Health Science Bachelor of Midwifery oo full scholarship dadkii xaq u lahaa yimid gabadhaasina waxay ku guuleysatay Faculty of Education Bachelor of Islamic Studies oo half scholarship furalix 95 gabadh baa soo istaagtay miyam wiil baa soo kacay ardaygaasi wuxuu ku guuleystay Faculty of Science and Technology Bachelor of Data Science oo full scholarship ardaydaasi waxay ku guuleysatay Medicine Bachelor of Public Health oo half scholarship haye ardaygaasi wuxuu ku guuleystay kulliyadda educationka Faculty of Bachelor of Educational Management and Planning oo full scholarship hambalyo aflageysta wuxuu ku siisaqayaa meel gabagaba inaan ka soo baxo laga yaabo lafta ugu horeeya waa furalin 88 gabadhaasi waxay ku guuleysatay Faculty of Medicine and Health Science Bachelor of Midwifery oo half scholarship ardaygaasi wuxuu ku guuleystay kulliyadda ganacsiga Bachelor of Islamic Banking and Finance oo full scholarship hambalyo arday baa halkaa gabadh baa ka soo kacday hagaag gabadhaas ha la soo dhaweeyo ardaydaasi waxay ku guuleysatay kulliyadda Social Science-ka Bachelor of International Relations and Diplomacy gabadhaasi waxay ku guuleysatay kulliyadda Islamic Studies oo full scholarship hambalyo gabadh bay noqotay maasha Allah gabadhaasi waxay ku guuleysatay kulliyadda educationka Bachelor of Educational Management and Planning oo half scholarship magacayga waxaa la yiraahdaa Samira Cabdisahal Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacaddan caalamiga ah ee Boosaaso University diyaarisa ama barata Department of Islamic Banking and Finance inta badan waxaa la yiraahdaa waxbarashadu waa iftiin nolosha ama waa hagaha nolosha hormuudka nolosha waxaan rabaa inaan idila wadaago gabay magaciisa la yiraahdo aqoon-yahan gabaygu wuxuu ku bilaabanayaa sida tan saada maansusiilayda gabay sixida geerarka saada maansusiilayda gabay sixida geerarka nimayo hawsanadahan murtidii waan ka saahidaye nimayo hawsanadahan murtidii waan ka saahidaye waatanan maansadii samayn duluucdu saarnayde ha yeeshee haddii aan sawiro gabayga saadkiisa sumcaddiisu waa inuu abwaan kala saxiixaye
waa inay khushuuc sidato qalbiga saaqdaye sadriga iyo labtiyo dhammaan sadihiya jirka inta xidid ku suran waa inay saxal u keenaane sidii sheekh muftiya oo cilmiga sani ku ahaday waa inuu sidaasoo kala kugu samaysmaye aniguna safkaasaan howay isida taye aan salsaliya cawo kaluusina leeyahay aan salsaliya cawo kaluusina leeyahay surta qalinka iyo tacliinta waa lagu samadaye surta buugga iyo sadarka waa lagu socdaalaye sumadii gobeed weeye iyo sababararede waa sahan ninkii ka haray siga qarisaye waa sumad ninkii aan lahayn lagu surgoyaye waa surin ninkaan mari aqoon seeb la mariyay sameeyay sin makahinkaad shay saacadu toobiyihii ay lahayd iyo surin maqaadsiiyey surinkay lahayd iyo ma maray sawriciya qabka sumad kalena waa midanka qoray subantaladayda sumad kalena waa midanka qoray subantaladayda daraju sitaa qofkii cilmi la saaxiiba siduu dalkeenu yahayna waad la socotaane tacliinta sarena xalka lagu sameeyaye tacliinta sarena xalka lagu sameeyaye darasada solan baa abaar lagu sidka gore halkaasaa siday bulshadu tahay isbedel lagu sameeyaye hal abuur samaana jiri karaa la saldhiga gore horumarka lagu siqaa saacadiya leyle sidaan inii sheegay iyo siya kalo gula sidaan inii sheegay iyo siya kalo gula ku sifooba saaxiibayaal waa layna sugayaa ku sifooba saaxiibayaal waa layna sugayaa aan ku soo gabagabeeyay waxaan idin leeyahay cilmi baahadiisii aqoon barashadeediyo daraasaad baarinkeed horumar baabka uu yahay jaamacadda bilan ee ku bihowday waa tane jaamacadda bilan ee ku bihowday waa tane barbaar yahay wanaagsani baraadhi dunida ee dadka baal ka raaco jaamacadda Boosaaso kugu boorinaysa noqon barta dhammaystiran waan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh